Well, thank you very much. Good morning, everybody. Thank you. Thank you, everybody. Boris Johnson ayaa loo doortay inuu hogaamiyo xisbiga Conservative-ka Ingiriiska isagoo sidoo kale noqon doona ra'iisul wasaaraha cusub ee dalkan ku yaala galbeedka qaaradda Yurub. Wuxuu bedelayaa Miss Theresa May oo jagadan iska casishay bishii Maarch kadib cadaadis xoogan oo ay kala kulantay baarlamaanka dalkeeda. xubnaha xisbiga Conservative-ka ayaa u kala codeeyay labada murashax ee isugu soo hadhay wareegga ugu dambeeyay codaynta oo kala ahaa Boris Johnson iyo Jeremy Hunt oo ah wasiirka arrimaha dibadda. Mr. Johnson ayaa codad badan kaga adkaaday ninka la tartamayay isagoo helay codad ka badan 29,000 oo cod, halka Mr. Huntna uu helay 46,656 cod. And today, at this pivotal moment in our history, Mr. Johnson oo guushiisa kadib hadlay wuxuu mar kale ku celiyay ballanqaadkiisii ahaa in Ingiriiska uu bisha Oktoobar ka saari doono Yurub inteeda kale. Barnaamijka Brexit ayaa ah shaqada ugu muhiimsan ee hortaala ra'iisul wasaarahan 55 jirka ah, iyadoo la wada sugayo tallaabooyinka uu qaadi doono. Boris Johnson wuxuu ka soo baxay jaamacadda Oxford intii aanu siyaasadda soo galin. Wuxuu ahaa saxafi ka soo shaqeeyay warbaahinta Ingiriiska. 2001 ayaa loo doortay inuu ka mid noqdo baarlamaanka Ingiriiska. Sanadkii 2008 wuxuu noqday maayirka magaalada caasimadda ah ee London oo 2 jeer uu ku guuleystay jagadaas. sanadkii 2016 ayuu noqday wasiirka arrimaha dibadda Ingiriiska isagoo jagada iska casilay sanadkii 2018 kadib iscasilaadii Theresa May. Johnson wuxuu u tartamay jagada ay banaysay Mrs. May isagoo ugu dambeyntii ku guuleystay salaasada maanta. Khadar Haybasaab TV. adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo eDahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda Dahabshiil. haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.